بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله qaybteena saddexaad ee ugu dambeysay ayaynu halkan ka geli doonaa insha allahu tacaala haddii qaybta saddexaad aad ka bilowday fadlan qaybta hore iyo qaybta labaad soo daawo kadibna qaybtan saddexaad aynu imaano waxaynu tusaaleyn doonaa kaarkeena hadduu silfar uu yahay waxaanu lahayn 15% dadka aniga sida tooska ay ugu qoran iyo anigaba waxaan sameeyno halka 10% laga siinayo dadka keeneen goldigana waxaan ku helayaa 18% aniga waxaan sameeyo faraciigana 11% farciisana 11% kamid iga siinaya labada tusaale ayaynu isla keenaa aanu tusaaleyno kaarkayga maanta hadduu silfar uu yahay 220 iib gaaraya aan sameeyo oo kaarkayga silfar uu noqday kambaniga aan u soo bandhigay laba qof oo saaxiibadaya iyagana aan u sharaxay ku qancay fursadda tan iyaguna sameeyay silfar iibsaday labadoodana laba silfar bay iibsadeen oo alaabtoodii productkooda bay qaateen kambaniga muxuu siinaya kambaniga wuxuu siinaya $80 ayuu commission aan siinaya darajada kambaniga ka galayna waxay noqonaysaa 4 star haddii labadii qofood ee keenaan laba kale ee keenaan afar qofood dadku ay noqdaan kambaniga wuxuu siinaya commission aniga wuxuu siinaya $40 buu siinaya su'aal baa laga yaabaa isweydiiso marka laba qof ay hayeen 80 bay hayeen waa marka afar noqdeen 40 ka dhigay waxa kala badan percentage-ka marna waxa lagu dhifanaya 15 marna waxa lagu dhifanaya maxay 10 lagu dhifanaya baad 15 ka qaadanaya 80ka waxa qaadanaya labada qofood baa qaadanaya adigu saa 40 buu kambaniga ku siinaya oo sababtooda maadaama ku timaaday kambaniga saas buu ku siinaya iyagana wuxuu dib leeyihiin adigana waxa ay kambaniga ku leedahay hada mar 5 star darajada 5 star ayaa noqonaysa marba dadka ugu bato waxa badanaya dhaqaalahaaga marba dhaqaalahaaga batan waxa isbedelaya darajooyinka kambaniga kaga jirtid ayaa isbedelaya waxaynu salaaki doonaa kaarkeena hadduu yahay gold hadduu yahay 440 muxuu kambaniga siinayaa baynu salaakina ugu horeyn anigoo haddii aan keeno laba qofood oo saaxiibadaya iyagana ay ka ama bulshadeeda igu heerdaamana igu hareereysan aan u sheego fikradda kan ku qanca doonayeen inay ka faa'iideystaan labada qofood 440 wada iibsadaan 180 ay kambaniga siinaya darajada 5 star ayaa noqonaya hadduu kaarkayga bronze gold uu yahay laba qof oo goldiyaan aan keeno 5 star ayaa automatically tagaya 180 dollar ayuu kambaniga siinaya isbuucaas hadaa intaas samay isbuucaas ma qaadanay la dhaqaalaha kambaniga bil lama sugo isbuuc la afarta isbuuc ee bishii waa la wada qaataa bay noqonaysaa labada qofood hadii laba kale ka tafreen oo 80 bay noqonaysaa marka ku xigta 136 isbuuca ku xiga ama bishi ku xigta hadii aad sameyso sabab ko til ilaa ay gaarto 5,000 ay gaarto dad Soomaaliyeed oo 2,000 ilaa 5,000 qaata isbuucii baa jira oo insha Allah taala ka faa'iiday nidaamka kan isbadinta team badan asaasay anaga insha Allah taala waynu suuragelaysaa inaynu inta in ka badanba inaynu sameeyno waxaanu saakeena insha Allah darajooyinka kambaniga la galo iyo noociyeen baynu saakeena darajooyinka kambaniga la galo qofka hadduu isdiiwaan geliyo 1 star buu noqonayaa marka 0 star buu noqonayaa oo wax muu lahaa hadduu isdiiwaan gelintu bixiyo then haddii uu iibsado kaarka bronze loo yaqaano waxuu noqonayaa 3 star buu noqonayaa hadduu silfarka kaarka loo yaqaano 220 iibsado wuxuu noqonayaa 4 star buu noqonayaa 5 star maxaa lagu noqdaa 5 star waxaa lagu tagaa aniga iyo teamka iga farcamo dhan inay 1200 iibsameen 5 star baa lagu tagaa 6 star waxaa lagu tagaa adiga wixii ka farcamo dhan ina 5,000 iiba ina sameysaan ayaa 6 star lagu tagaa 7 star waxaa lagu noqdaa adiga wixii ka farcamo dhan ina 25,000 iiba inaan sameyno ayaa lagu noqon karaa 25,000 iiba ma badno oo adiga hadaad haysato tusaale ahaan oo kale konton qofood $100 ee sameys bishaas waa $5,000 5 biloodba waa awoodaa inaad ku tagto iyo ka yarba dad ka yar ku tagay ayaaba jira maxaa yidhahdaa darajada loo yaqaano 7 star waxaynu isweydiinaynaa marka 7 star haddaynu macno maxaynu helinaa abaalmarin badan oo soo baxay baa jira oo dalxiisu ka mid yahay dad badan oo dalxiisu ku guuleystay baa jira insha Allah taala oo bishan hadda sagaalaad ku guuleystay bisha 8 iyo 9aad ku guuleystay loo qaadi doono hadduu alla idmo maxaa yidhahdaa dalxiis loo qaadi doono iyagu wax dhaqaalaha aan ka bixi doono kambanigu qaba 7 star bay soo gal abaalmarinta baa lagu doosiyay irsaal qofka hadduu soo galo isagana wuxuu ku soo gali karaa 100,000 oo iiba inuu sameeyo isagii wix ka farcamo dhan 100,000 oo iiba ma badna waxay noqonaysaa adiga iyo teamka ka farcama haddii tusaalahaan kale 1,000 qofood baa ka farcanta 1,000 qofood $100 haddii lagu dhufto waaba 100,000 marka way fududahay markii aad team aad haysato way fududahay iyo laba 7 star inaad soo saarto haddaba 8 star laba 7 star iyo maxaa yidhahdaa
boqol kun iiba 7 star waxaa lagu noqdaa 25 kun iiba 2 6 star 6 starna waxaa lagu noqdaa 2 5 star inaad soo saarto ka hooseeya adiguna iib 5 kun gaarina sameys haddaba 8 star haddaynu dhamaano maxaynu kamid kelinaa waxaynu kelinaa wax loo yaqaan African share Afrika iibka ka dhaca oo dhan ayaan share ku leeyahay ma jirtaa qof share ku darsan kara company ka furan Afrika iibka ka dhaca ama Afrika company ama system warshad ama ma ka wada furi kartaa adigu personally Soomaaliya jooga miyaa ka furan kartaa shirkad ma awood inaad ka furan karto haddaba companyga wuxuu ku suuragelinayaa xarumihiisa ku yaala Afrika iibka ka dhaco idil dadka erisaarada share bay ku leeyihiin shirkaasoo gaaraya maraba kor buu u sibataa 300 ilaa 500 buu gaaraya hadartan intaas buu u dhaxeeyaa laakiin marwalba dadka sii bato uu ka sii weynaanaya ama ka sii kordhaya marka bilowba inaad qaadato lacagtaas adigu oo lagu qoondeeyay companyga share baa ka tahay share inta leeg adigu qaadanayo commissionkaagana gaar uu ku yahay marka waxa weeye janiska u suurageliyay maamooyinkaas inay fursadatan ay ka faa'iideystaan weeye noocaas Bronze Lion waa darajo aad u sareeya khadka cagaarma khadka loo yaqaan Bronze Lion wuxuu qof ku tagi karaa laba qofood oo ay saara inuu soo saaray Bronze Lion ku tagi karaa dhaqaaluhu sameey aad buu u badan yahay oo $5,000 bay qaataan 3 bil kasta oo dhaqaalahan global share bay noqonayaan share bay company ku leeyihiin way oo dhaqaalahooda ayaa inta noqonaya 3 bil kasta bay dhaqaalaha noocaas qaadanayaan oo ay sameyn karaan haddaba dad gaari ma jiraan yes maamooyin gaari baa jira Silver Lion maamo waxba qorin waxba aqri Silver Lion maraysa baa jirta seebay ku gaartay dad bay qortay dadkaasna waa loo tababar maadaama iyadu markaa tababarkiisa ama dadka sare baa tababaray wixii baa ilaahay sii waday wayna socotay waqti bay qaadatay yes laakiin hadeertaan waxay maraysaa marxalad aysan u baahnayn inay shaqayso ee gurigeeda iska joogto iska cibaadaysto xajkeeda iska aadibay maraysaa haddaba Silver Lion $10,000 bay 3 bilood walba lacag gaaraysa bay ku xisaabtamaan oo companyga share ay ku leeyihiin companyga qabsanaya iyo dalxiisyo abaalmarino badan baa jirta oo ay risaaqada marka soo gaaraan halkan marka soo gaar abaalmarin gaari baa la siiyaa 110 kun gaaraysa halkaas Bronze Lion qofku markuu soo gaar la siinay abaalmarin gaar 15 kun gaaraysa qofku markuu isdiiwaan geliyo ilaa oo Gold Lion ka tagayo dhakaarkiisa $30,000 baa dul saaran oo companyga oo si yara tartiib u siinayo ee saarka markuu soo gaaro qofkii qayb la siinayo 10,000 laga yaabaa in la siiyo ama 5,000 la siiyo marba janiska markaa jira ama fursadda markaa jira si uga faa'iideysto ku xirantahay haddaba 30,000 markaa isdiiwaan geliso sa uga faa'iideysan lahayd adiga ku taala ama sa uga faa'iideysan lahayd qof walba iyo raganimadiisa ay meesha noqonaysaa waayahay waxaynu isla arki doonaa insha Allah ta'ala abaalmarinada companyga uu bixiyo wuxuu bixiyaa dalxiis sanadlaha ayuu companyga bixiyaa abaalmarin gaari buu bixiyaa sanadlaha sidoo kale abaalmarin guri buu bixiyaa insha Allah ta'ala dad Soomaali guri ku guuleysan doona wayna arki doonaa doolidma laakiin hadda dad badan dalxiis ku guuleysan baa jira wadamo badan oo Soomaaliya maxaa la yiraahdaa ka baxsan Soomaaliya gaaray ee ka mid tahay China ee ka mid tahay Bali hadda dadka Soomaaliyeed waxay joogaan jasiiradda Bali ku taala jasiiradaha loo dalxiisay ka mid yahay dad badan oo Soomaali gawaari ka guuleysan baa jira boqolaal gaaraya sanad walba 40 qof baa ku guuleysata sanad walba ilaa 50 qof dadka hadda ku guuleystay dadka Soomaaliyeed abaalmarinada gawaarida ku guuleystay waxay gaarayaan 400 qof bay gaarayaan sanad walbana korbay u sii kortaa way haddaba haddaan dib ugu soo celino waxyaabaha laga doonayay waa maxay inaynu account ka furno $100 kaliya bixino kadibna qaadano tababaradii fahanno casharadii waxyaabaha qaabka u socdaan daraasayno fahanno then ID card ama xirmo company oo kiibsan ID card inaynu samaysano markaa kadibna inaynu barno asxaabteena iyaguna si ay u noqon lahaayeen la wadaagno barno iyagoo si u noqon lahayd dad horumar gaara insha Allah ta'ala decision maanta qaadato ayaa noloshaada wax badan ka bedeli doonaa haddii uu alla idmo insha Allah dad badan Soomaaliyeed horumar badan ka sameeyay baa jira oo guulo waaweyn ka soo hooyay dalxiisyo iyo horumar badan ka sameeyay insha Allah ta'ala adigana waxaad tahay next qofka xiga ku guuleysan doona tagaanad waxay joogaan darbiga January joogaan u dalxiisayeen waa dad Soomaaliyeed hadda yarkan Silver Lion way waxa lagu soo qoray sidoo kale jariidadaha caalamka Nasdaq waxa weeye financialka ama waxyaabaha dadka horumarada sameeyay meelaha lagu soo qaato weeye New York ku taala darbigaas ayaa lagu soo qoray isaga dad badan oo dunida qofka kaliya Soomaaliyeed inoogu jiro waa isaga Soomaaliya aan dhaafin
buu wuxuu noqdaa dadka ugu saameynta badan dunida ee lagu soo qaatay nasaq lagu soo qaatay dhaqaale badanna kamaniga ka sameeya horumar badanna ka gaara haddaba insha allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa inaynu guulo badan ka sameyno waxaa kaa codsanaya insha allahu tacaala dhowr su-aalood inaan iyo soo jawaabto su-aashaas oo ah maxay tahay shayga ugu horeeya ee aad ka heshay ku qanciyo businesskan kaa qanciyo waa maxay sidoo kale maxay tahay go-aanka aad qaadatay si aad isbeddel nololeed aad u samayso shaqadaadina aad u wadato adigoo shaqadiyaa shaqayso haddaadan shaqayna fursad shaqo businessa ku noqonayso labada su-aal baa jawaabteeda kaa sugi doonaa maxay tahay shayga ku qanciyey oo ku soo jiitay iyo go-aanka aad qaadatay muxuu yahay insha allahu tacala igu soo jawaab waxaan rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxaana diyaar kula ah mar walba tababaradii fahansiintii iyo sidaa horumar ku gaari lahayd insha allahu tacaala we will together waynu wada guulaysan doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu